fur helaan runtii saa u jeedeen waxaan kormeer ku sameynay hay-adda iyo siday u diyaarinayaan afurka maanta waa maalintii koowaad ee ramadaan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaanna waxaan leenahay ramadaan kariim horeyna waxaan ugu baaqnay barnaamij la yidhaahdo taakulo oo ah in ramadaankan uu noqdo mid ka duwan kuwii hore oo shacabka Soomaaliyeed ay noqdaan kuwo isku tashta isgargaara runtii hay-adda samafalka shacabkana inay ballanteedii hore ka dhabayso maantana ayna tusto siday ugu diyaar garowday qaybinta raashinka dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir siiba dadka tawaalaysan annaga maamul gobolka Banaadir haddaan nahay naga go'an tahay in shacabka tawaalaysan la gargaaro gaar ahaan kuwa xeryaha qaxootiga ku jira sidoo kale waxaan ballan qaadaynaa in hay-adda samafalka shacabka in la garab istaago waxaan kaloo shacabka ugu baaqaynaa arrintan waa arrin u baahan shacabka inuu isku tashto qof sooman oo la afuriyana ajirka ugu fiicana laga helayaa marka waxaan rabnaa ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeedba inay hay-adda samafalka u diyaar garowday inay dadkaas quudiso in lagu saacido wax alaal wixii lagu saacidi karo ha noqoto raashinka oo qaleelka ah ha noqoto wixii dhaqaale ah si barnaamijkan u noqdo mid qof kasta oo gobolka Banaadir jooga oo u baahan inuu afur helo si uu u helo sidoo kale shacabka waxaan ugu baaqaynaa dariskooda iyo dadka inay ka warqabaan bishan waa bishii raxmadda waa bishii isu gargaarka waa bishii ugu khayrka badneed bilaha marka waxaana laga rabaa annaga iyo culimaa diinka iyo dhammaan bulshadaba iyadoo la iskaashanayo in khayrka ugu fiican lagu tartamo marka aad iyo aad kaga mahad celinaynaa hay-adda samafalka shacabka iyo dhammaan cid alaale ciddii kaalin ka geysatay waa mahadsantiin